daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa atirisada caanka ah Priyanka Chopra oo hadda ka hor ka xanaaqday markii Ranveer Singh meel fagaara ah uu ku shumiyay. Ranveer Singh waa xidig aan deganayn oo aad u fudud sidoo kalena kaftan badan. Dhalinyarada ee Bollywoodka ka shaqeysa ugu kaftan ka badan ayuu ka mid yahay Ranveer Singh. Sida awgeed saxaafadda India iyo Bollywoodka waxay ugu yeeraan xidiga ugu enerjiga badan ama tamarta badan iyagoo ula jeeda fudeydkiisa iyo hadalbadnidiisa awgeed oo waliba kaftan ay u sii dheer tahay. Haddaba waxaa jira arrimo xidig walba u gaar ah. Arrimahaas ha noqdeen kuwa xun iyo kuwa aan fiicnaynba. sida la sheegay Ranveer Singh wuxuu shumiyay Priyanka Chopra waliba wuxuu ku shumiyay goob fagaara ah oo dadka dhan ay wada joogeen. Waxay ahayd inta lagu guda jiray duubista filimka dadkane duu xilligaasoo uu Ranveer uu aad ula kaftamay xidigtan kadibna shumis uu kula booday. Dadkii filimkaas ka wada shaqeynayay way wada arkayeen waxa uu sameynayay Ranveer Singh oo ahayd dhacdo xun in uu ku dhaqaaqay, balse Priyanka Chopra ayaa ka yaabtay tallaabooyinka uu xilligaasi qaaday Ranveer Singh. Balse Priyanka Chopra kama aysan helin falka uu ku kacay Ranveer, wayna ka xumaatay oo ay ka xanaaqday. Muddo kadib xilli filimkan xayeysiin loo sameynayay ayay Priyanka Chopra sheegtay in Ranveer uu yahay shakhsi aad u fudud oo xawaarihiis uu sareeyo meel walbana iskaga dhacayo. Maalintaas wixii ka dambeeyay Ranveer wuxuu go'aan ku gaaray in uusan la hadlin isla markaana uusan la shaqeynin atirishada caanka ah Priyanka Chopra. daawadayaal intaas ayaynu barnaamijkeena ku soo gabagabaynaynaa.